Somaliland maanta god madow bay ku sii socoto waa hubaal weey godkaan madow ay ku sii socoto badbaadadeedu inay tahay in lagu soo celiyo oo mugdiga laga soo saaro oo la keeno halkii ummaddu wixii ay u samaysatay iyo halkii ummaddu ay ku wadaagi lahayd dib loogu soo celiyo waxaynu samaysanay waxaanu shirka u qabanay taa weeye waa muuqataa idinkaa og cid walibana waa og tahay sidaana Somaliland ku noqon mayso cidda xilka haysan xilku hayn mayso waxaanu fariinta leenahay oo tiinaro idinkuna aanu u tiraahdeen oo nagala mitiin aynu u diraynaa inay u dhaganuglaadaan Somaliland wada lahaanshaheedii iyo wadaageedii taladeeda iyo tamarteeda iyo wax kastoo la xiriira in lagu soo celiyo oo mid la wada leeyahay oo loo sameeyay gees ilaa gees ay timaado waxaan hadalka ku ureeyay war murtiyeedkaygii uu ku jiray xaqiiqada dhabteedu wax anigu 6 habeen baan joogay ceelafweyn iyo wafti badan oo ila soo waxa xaqiiqa wixii dawladdii maalin bariga joogtayna inaanay daacad ka ahayn dabada ka riixaysa iyadu si hurinaysa tamaanta joogtaana inaanay wali daacad ka noqon